سؤال يلو كفتنا مركز ربع أنت أنا كويدي دوان مركز أقول رئيس أفر سنة كذب واحد مع مركز أقول رئيس البلد كذب شيء أقل كم مدحته يدا أو يفر سنة كورك قدام ليس واحد صاب وقت بالله حرقيسة أو قصة يعني بدون كبرلمان كا حافظ كا أفر سنة كورك شقين يسئير بوتره مشرح يعد حلك كوري جسي لبدا كل لبيه طبعا كانت جوه waxaa isaga soo boqonaysa madaxweynaha aniga walaa murashaxana marka muu malaynayo wax gaar ah inay jiri karaan laba slogan oo waaweyn lagu tartamaya slogan waa sloganka madaxtooyada u dhagan musharax Xasan Sheekh Maxamuud ee ah qadiyo ninkeeda dhameystira musharax sloganna waa maboorna waa midka u dhagan musharaxiinta adadu ka mid tahay ee ah isbedel doon waa in isbedel dhacaa وفهم قبيو wuxuu xasan taagan yahay musharax Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ala hadda 4 sano soo waday bal waxba iga dhimanay aan dhameystiro waa la fahmi karaa isbedelka adiga iyo musharaxiinta kala adartaan wuxuu yahay in madaxweynaha la bedelayo xukuumadda mise wax kale isbedelaana wadaan oo dalka iyo dadka dan ugu jirto aan ku hormar horta qabiyo ninkeeda dhameystira positive lama isticmaalo negative ha loo isticmaalo waxaan soo qaadanayaa qodob muhiim ah amniga waxaa hadda la sheegaa in mushkiladda ugu weyn waxay sabtaa al-shabaab ay tahay al-shabaab waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu markaa fikrado iyo aragtiyo kala qaba dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan al-shabaab in xal laga helo ama xal loo helo ama awood loo sheegto oo meesha laga saaro ama in xal wada hadal lagu doono yaa laga sugayaa ma Mareykanka iyo reer galbeedka iyo qaramada midooba u xilsaaran bas dawlad Soomaaliyeed ayaa laga rabaa inay xal ka raadiso maadaama aan ognahay dawladihii soo maray tan iyo markay abuurmeen inaanay jirin dawlad wax wada hadal ah ama istiraatiijiyad ama qorshe u keentay adiga xukuumadda hogaamin doonto ma wada hadal baad u wajahaysaa awood baa loo wajahayaa shabaab maxaa lagu xalinayaa illa waa amniga caqabad taagan haddana haddii aan ku guuleysto ani mar walba waxaan diyaar u ahay wixii dhiigga lagu joojinayo nabadda lagu soo celinayo waata madaxweynimada Soomaaliya dadka badankood waxay aaminsan yihiin waxa loogu soo wada cararayo inuu yahay kursi dhaqaale laga sameeyo aniga dhaqaale kuma sameeyo ana su'aasha madaxweyne musharaxan ku dhamay haddana uma socdo aan ku dhamay dad baa waxay leeyihiin madaxweyne Sheekh Shariif 4 sano qurbaha ku maqnaa qurbahana waxa lagu soo yeeshaa bidaar marka koofida hal mar ma loo qaadi kartaa Soomaaliya aad iyo aad kaga mahadnaq